asalaamu calaykum maqaarti meel bajogtiino mar kale muuqaal cusub oo ku eegi doono wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga iyo akhbaaraadada xilligan suuqa laga diiwaangelinayo Arsenal oo markaan qarka u saaran gabagabaynta Victor Gyökeres xilli sidoo kaleetana ay ku dhow yihiin 20 milyan ku gabagabayaan Mosquero. Liverpool oo markaan doonatay ninka lagu magacaabo Benjamin Sesko. Manchester oo markaan dagaal adag u galaysa Palini oo Bayern xilli sidoo kale Bayern ay doonayaan laacib lagu magacaabo Malo Gusta. Newcastle oo 100 milyan ku doonaysa Watkins oo kooxda Aston Villa xilli Barcelona markaan amaah ay ku qaadanayaan Marcus Rashford iyo akhbaaraadyo kale oo suuqa ku aadanayaan eegana haddii aan muuqaalka ka hesho like ray kanaalkana subscribe nasar haddii aan ku bilownaa wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga akhbaaraadyo waaweyn ayaa caawa jira kooxda kubadda cagta Arsenal ugu dambeyn markan waxay gabagabeynayaan laacibka lagu magacaabo Victor Gyökeres sheekadiisu marka waa gabagabo ugu dambeyn macallimiinta Arteta waxaa loo soo gacan gelinayaa Victor Gyökeres sida haatan wararka ay sheegayaan kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa ku dhow inay dhameyso xidiga lagu magacaabo Victor Gyökeres kaasoo maalmihii ugu dambeeyay Arsenal 5 milyan kaliya ee u xayirnaayeen haatan wararka soo baxay waxay sheegeen in Arsenal ay gabagabeeyeen xidigan labada kooxoodna markan heshiis ay gaareen sida haatan ay wareynayaan wariyaasha kale ah Oriente iyo ninka kale lagu magacaabo Fabrizio marka kooxda kubadda cagta Arsenal haatan ninka way gabagabeynayaan lacagihiina marka waa la isku waafaqay waa 70 milyan oo euro lagu daray 10 milyan lacag mar walba bixinayso maxaa dood ku gelinaya marka Arsenal ugu dambeyn ninkan gacanta ay ku dhigayaan oo way soo qaadayaan marka kooxda kubadda cagta Arsenal si walba u ruuclayso ugu dambeyn Gyökeres way heleen marka sheekadun waa gabagabo saacadaha soo aadanna laacibka waa lagu dhawaaqaya marka Arsenal sheekada waxaa looga bisleystay ugu dambeynna way toosta marka kooxda kubadda cagta Gunners-ka jamaahiirtooda caawa qalbada ayaa u qabow 70 milyan balas 10kii odiska 80kii way bixinayaan marka awla horeba 75 milyan ay taaganayeen waxay taaganayeen 75 milyan kaliya ayaa wadana laakiinse markan Andre Barreta iyo xirtiisa waxay go'aansadeen in sheekadan la gabagabayo macallimiin qaraataytana ninkan gacanta loo kaliyo marka Orientes haatan wuxuu leeyahay Arsenal wali lacag rasmi ma bixin laakiinse heshiis ayaa la gaaray sheekadan way gabagabowday marka Arsenal waxay ku jiraan waqtigii ugu dambeeyay ama stage-kii ugu dambeeyay ee heshiiska ay markan ku jiraan marka sheekaduna markan way soo carfeysaayo marka sheekadu way isku soo gabagabowday Fabrizio wuxuu taagan yahay sheekada waa lagu kala baxayo saacadaha soo aadana waa lagu dhawaaqayaa xidiga lagu magacaabo Victor Gyökeres marka laakiin sheekadan waxaa soo dusiyay wariye Portugiiska oo caan ah oo lagu magacaabo Chris Watlett ninkan ayaa arinta soo gudbiyay sheegay in sheekada ay gabagabowday marka Fabrizio iyo David Orientina ninkan ay ka soo dafeen sheekada marka ninkan wuxuu u shaqeeyaa majalada lagu magacaabo Ebola marka majalada Team Talk haatan iyaduna waxay leedahay sheekada way dhamaatay 27 jirkana haatan wuxuu u dhaqaaqayaa dhanka iyo Emirates Stadium dhinaca kale kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa markan ku dhow in 20 milyan ay ku gabagabeeyaan difaaca kooxda Valencia ninka lagu magacaabo Mosquero wuxuu noqonayaa saxiix kale oo markan Arsenal ay gabagabeynayso isbuucan oo bari u bilaabanaya nimanka galbeedka oo isniina waa isbuuc Arsenal shaqo weyn u taalo inay gabagabeeyaan Mosquero sidoo kaleetana ay soo qaadaan laacibka lagu magacaabo Victor Gyökeres ninka la yiraahdo Andre Barreta dib ayuu Portugal uga laabanaya sidii sheekada Gyökeres loo soo gabagabeeyay marka laba saxiix ayaa haatan Arsenal gacanta ku haystaan waa Mosquero iyo xidiga kale lagu magacaabo Victor Gyökeres marka nimanku sheekadu way u fadhisaa marka weeryahanno kaleetana markan indhaha ay ku hayaan laakiinse markan waxa u maleynayaa reer Arsenal ninkan ay baqaati ka taagnaayeen oo dhahayeen war noo keena ugu dambeynna ninka waa loo keenaba dhinaca kaleeto kooxda kubadda cagta Liverpool markan waxay u dhaqaaqeen laacibka lagu magacaabo Benjamin Sesko ayay doonayaan haatan inay soo xirigeliyaan Liverpool waxay raadinayaan bedelka Jota iyo xidiga kale lagu magacaabo Darwin Núñez oo kooxda iskaga baxaya haatan kooxda kubadda cagta ee la yiraahdo Liverpool waxay u dhaqaaqeen laacibka lagu magacaabo Benjamin Sesko kaas oo Arsenal iskaga baxday sheekadiisa laacibkan ayaana lagu helay lacag gaaraya 100 milyan haatan kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxay rabaan laacibkan la yiraahdo Benjamin Sesko inay soo xirigeliyaan walow haatan sidoo kale tan Liverpool ay daneynayaan xidiga lagu magacaabo Hugo Ekitike labadan laacib oo Bundesliga ka wada ciyaara ayay haatan doonaysaa kooxda Liverpool inay soo xiriiriso marka Benjamin Sesko waa wiil cajiib ah oo lambarka 9 ka ciyaara kooxdiisa RB Leipzig marka uu iskaga dhaqaaqaya ugu dambeyn Liverpool ayaa sheekada soo gashay oo haatan laacibkan xiiseynaysa waxayna rabaan laacibka lagu magacaabo Benjamin Sesko inay soo xiriiriyaan nimanka ka dhisan qalcadda Anfield haatan wararka soo baxay waxay sheegaan in wakiilada laacibka lagu magacaabo Benjamin Sesko ee Liverpool iyaga la xiriireen laacibkan u soo bandhigeen marka wakiilada ayaa Liverpool waxay ku dhigeen
ka warama sheekada Benjamin Sesko Liverpoolna diyaar waayay taagan tahay oo laacibkan markan isaga ayaaba soo doontaba marka ugu dambeyn xidigan Liverpool ayuu markan ku wajahan yahay sida haatan wararku ay sheegayaan waan arki doonaa wixii kasoo kordha dhinaca kale kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa markan waxay doonayaan laacibka lagu magacaabo Palhinha oo u ciyaara kooxda kubadda cagta Bayern Munich kooxda badan Premier League ayaa doonaya kooxda Fulham oo hore ninkan ugu soo ciyaaray Brighton Aston Villa iyo Manchester United dhammaantood afartan kooxood ayaa haatan ninkan si aad u xiiseynaya oo waxay rabaan dib inay ugu soo celiyaan laacibkan la yiraahdo Joe Palhinha dhanka iyo Premier League marka laacibkan waqti ayuu ku soo qaatay Premier League haatan Bayern Munich ayuu ku sugan yahay marka kooxahan afarta haatan waxay doonayaan laacibkan inay soo xirigeliyaan Manchester United haatan ninkan target ayay ka dhiganayaan waxa ay rabaan laacibka lagu magacaabo Joe Palhinha qalbadooda dhexe inay ku soo adkeeyaan marka wiilka reer Portugal markan macalin Amorim ayaa doonaya inuu soo xirigeliyo sidoo kale tan wararka xilligan jira qayb waxa ka noqonaya kooxda kubadda cagta Newcastle ayaa markan waxay diyaar u tahay inay bixiyaan lacag gaaraya 100 milyan ayaa markan diyaar u yihiin inay ka bixiyaan Watkins oo u ciyaara kooxda kubadda cagta ee la yiraahdo Aston Villa meel Newcastle 100 milyan miiska saarayso kooxihii kalena ay taagan yihiin ciyaaryahan weyn oo Kia Kroos oo kale 75 milyan ilaa 80 milyan la weydiiyay diidan yihiin walle Premier League waxaa yaala Newcastle ayaa haatan diyaar u ah inay ninkan wada xaajoodi kala galaan kooxda kubadda cagta ee Aston Villa xidigan ayaa haatan diyaar u ah inuu iskaga baxo qalcadda Villa Park ee ku ciyaarto kooxda la yiraahdo Aston Villa sidaa daraadeed Manchester United iyo Newcastle iyo Arsenal xitaa laacibkan ayay isku hayaan marka walow Arsenal haatan Kia Kroos ay ku tageen laakiinse sheekada way ku jireen oo laacibkan waa la xiriirinayay laakiinse Newcastle waxay taagiin 100 milyan ayaan diyaar u lanahay adeega xidiga lagu magacaabo Watkins marka Watkins markan waxa u gacan taagaysa kooxda kubadda cagta Newcastle dhinaca kale kooxdu ka dhisan qalcadda Camp Nou ee Barcelona markan waxay rabaan qaab amaah inay ku qaataan ninka lagu magacaabo Marcus Rashford kaas oo kooxda kubadda cagta Manchester United iskaga dhaqaaqaya marka nimanka ka dhisan qalcadda la yiraahdo Camp Nou ugu dambeyn waxay rabaan sheekada laacibka lagu magacaabo Rashford inay ku gabagabeeyaan qaab amaah walow la leeyahay Manchester United amaah iyo sheekada ma doonayso oo laacibkan 40 milyan ay ku doonayaan inay ku gabagabeeyaan asiga dhan ayay rabaan inay dudub iskaga diraan marka nimanka ka dhisan Spain ee Barcelona markan ninka Rashford mar walba way rabaan Juventus xitaa sheekada way soo gashay oo laacibkan way xiiseynayaan marka Manchester United waxay taagin mar un lehana dhaafo Rashfordkan mar un hana dhaafo wax naga iibsada helno Barcelona waxay rabaan laacibkan qaab amaah inay haatan ku qaataan dhinaca kale kooxda kubadda cagta Manchester United waxaa markan raba inuu iskaga baxo ninka la yiraahdo Garnacho wuxuuna ka mid yahay ciyaartoyda la dirayo laakiin ninkan go'aan la yaab la ayuu qaatay oo ah inuu rabo inuu Premier League sii joogo Manchester uma ciyaaraya aniga laakiin Premier League sii joogaya kooxda Al Nassr oo Ronaldo oo u ciyaaro oo ninkan Ronaldo ayuu ku waalan yahay wuxuu taageeraa Cristiano sidaa daraadeed laacibka waxaa isla Al Nassr ayuu u dhaqaaqaya laakiinse darab ugu yimid Al Nassr waa uu diiday oo waxa uu yiri Al Nassr iyo Sacuudi uma socdo aniga Premier League iyo qaaradda Yurub ayaan rabaa inaan sii joogo marka ninkan haatan kooxda Chelsea ayaa indhaha ku haysa oo rabta inay soo qaado walow haatan si rasmi ah Chelsea ugu soo dhaqaaqan xidigan laakiinse xidigan wuxuu leeyahay markan aniga waxaan rabaa inaan sii joogo horyaalka Premier League iyo kula tahay inuu ku biiri doono ama kooxdii ayuu ku biiri karaa ninka lagu magacaabo Alexander Garnacho dhinaca kale kooxda kubadda cagta Bayern Munich ayaa markan waxay u dhaqaaqayaan wiil dambeed ka mid ah ugu ciyaara kooxda kubadda cagta Chelsea waana xidiga lagu magacaabo Malin Couto ayaa haatan dooriyaan inay soo xirigeliyaan ninkan ayaa haatan rabaan nimanka ka dhisan Allianz Arena inay soo qaadaan Chelsea waa iska xidiga badan tahay waa iska qashin badan tahay marka xidiga dhowr ayaa laga doonaya Bayern Munich haatan waxay indhaha ku hayaan xidiga lagu magacaabo Malo Gusto marka nimanka ka dhisan Bavarianka ninkan ayaa haatan rabaan inay soo xirigeliyaan sidoo kale kooxda kubadda cagta Sunderland ayaa markan waxay doonayaan inay qaataan ninka lagu magacaabo Aaron Ramsdale oo amaah ku jooga kooxda Southampton sheekadiisi way soo dhamaatay ninkan haatan kooxda kubadda cagta ee Sunderland ayaa indhaha ku haysa oo waxay rabaan xidigan inay soo xirigeliyaan marka wiilka cajiibka ah shabaq u ilaaliya kooxda kubadda cagta Southampton sanadkii haatan amaahda ku joogay halka markan kooxda kubadda cagta ee Sunderland ayaa markan doonaysa waxay rabaan laacibkan in Stadium of Light ay haatan ninkan keenan oo marka halka uu shabaqa ka ilaaliya marka kooxda kubadda cagta ee la yiraahdo Sunderland ninkan ay doonayaan in soo xirigeliyaan sidoo kale si rasmi ah waxaa loo gabagabeeyay heshiiska laacibka lagu magacaabo Petrovic kaas oo West Ham haatan tijaabada caafimaad u maray laacibkan heshiiskiisa waxaa lagu gabagabeeyay
milyan Chelsea ayuu ka tegey wuxuuna ku biiray kooxda la yiraahdo Bournemouth iyagana waxaa ka tegey laacibka lagu magacaabo Kepa oo awalba amaah ayay ku haysteen ninkan wuxuu ku biiray kooxda kubadda cagta ee la yiraahdo Arsenal heshiis 5 milyan ayuu halka ugu dhaqaaqay Chelsea ayaana iska leed marka Bournemouth iyo Chelsea wada shaqayn ayaa ka dhexeyso dhanka goolahayaasha ah marka Kepa ayaa amaah ku siiyeen waa laga soo ceshtay Mitrovic ayaa 25 milyan haatan laga siiyey keebihina Arsenal ayaa 5 milyan laga siiyey marka sheekadii waa isku soo gabagabowday laacibkana beri wuxuu noqonayaa isniina kooxdii kubadda cagta Bournemouth ninka tirsan marka akhbaaradyadana waxay ahayn kuwii ugu dambeeyay haddii muuqaalkaysa noolaa garay kanka subscribe noo soo gudbay